hogaamiyaha urur siyaasadeedka Samac Cabdishakuur Shaasha ayaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbaday in uu siiyo kursiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka maadaama sagaalka xubnood ee ugu sareysa dalka aysan ku jirin qof jareer ah. Haddaba ma mudan yihiin dadka jareerta ah in loo magacaabo kursigaasi? waa kuwan qaar ka mid ah shacabka u dhaqan magaalada Muqdisho oo aan hor dhignay. shareertu waa dad Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaruhu waa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed. maadaama ay shareertu dad Soomaaliyeed yihiin oo ay dad muwaadiniin yihiin, ra'iisul wasaarahana waa gayaan, madaxweynahana waa gayaan, baarlamaankana waa gayaan. inay xukunka in badan hayaan ama loo dhiibana tala dalka ay wax ku yeeshaan oo go'aamiyaan xaq bay u leeyihiin. haddii lay weydiin lahaan anigu u dhiibi waana taageeraa, waana dad sharaf leh, waana dad aan ummadda Soomaaliyeed dembi ka gelin qabiil ahaan marka la yiraahdo, beel ahaan la yiraahdo. marka kolley saasaan aniga ra'yiga maartay aan ku oran lahaa inaan yahay kursigaas beela iska leh ama saa wada ognahay beelaha gareeda inta badan ku fadhiis lacala haddii qof jareer loo dhiibo ma laga yaabaa inay dhibaato ka dhalato. gabadh yahay ra'iisul wasaarenimada Soomaaliya beeli male, saami qaybsi iyo maroorsi iyo isisiin gaara mooyaane kursiga ra'iisul wasaarahana beel gaari male, madaxweynahana beel gaari male. anigu waxaan ka soo jeedaa beelaha ku fadhiista kursiga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. haddii waxa weeyaan aan si saxa oo xaqiiqa oo xaqa kaaga jawaabana, kursiga ra'iisul wasaaraha iyo ka madaxweynaha iyo ka baarlamaanka iyo kuraasta kale ee beelaha gaarka ay sida joogtada ugu fadhiistaan waxay leeyihiin ma wax ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeyo weyn. waa mudan aad u mudan waayo waa dad Soomaaliyeed wadanka xaq ku leeyihiin, way u dhashteen dadkaas kale waxa ay ka yihiin meesha ka yihiin. Soomaalida dhibka weyn oo haysta dawlad la'aanta iyo burburka iyo baaba u keenay waxa waaye dadka la heeb sooco oo la dulmiyo ifa marar qaar waxyaabo badan dhaco. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa Soomaaliyo shan oo qofna la heeb soocin inkastoo aan ka mid ahay dadka la heeb sooco laakiin waa ka xuma. insha Allah waxaan rajaynaynaa Soomaaliyo midax oo wada siman oon qof la heeb soocay aysan jirin inay noo dhalato. waana mid kaliya oo aan ku horumari karno oo aan Afrika iyo wadamada caalamka iskaga dhici karno. xaq bay u leeyahay waa dad Soomaaliya. Soomaaliyana ilaa kursiga Soomaalinimo ama yaa istaahila lagu qaybiyo oo ay qolo ka tagto ka bixi mayso dulmiga. waa mudan yihiin waayo waxay u mudan yihiin waa dad Soomaaliya oo islaama. Soomaalina waa wada leedahay kuraasta iyo xilalka Soomaaliyeed xibinay ku leeyihiin wayna naqan karaan ra'iisul wasaaraha dalka. waxaana laga yaabaa waliba dadkeenu wax badan ay ahaayeen inay wax badan ka bedelaan, waayo inta badan hadda jareer dadka madax adag leh wuxuu badan yahay dad daacada ma fahanto. waxaana laga yaabaa hadday naqdaan inay wax weyn ka bedelaan dalkana wax u qabtaan laga yaabaa. waa mudan yahay sababta waa qof Soomaaliya, waa qof oo wadanka wax ka qaban kara, waa dad oo maanta la oran karo wadanka wax ka qaban karaan. laakiin dadka waa la yeestaa iyaga iyo qabiilo badan oo hoos baa loo dhigaa, laakiin way mudan yihiin in la soo laga dhigo ra'iisul wasaaraha kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaan hor dhignay sida ay u arkaan in kursiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo kamid ah kuraasta ugu sareysa hoggaanka dalka in loo magacaabo qof jareer ah. waxayna inta badan dadka isku raaceen in ay mudan yihiin dadka jareerta ah in loo magacaabo kursigaasi. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.